waxaa la yiri ninkii taana ku siiyo in ninkii tala ku siiyo yaa wacan. Taanadu waxaa ka wacan ninkii tala ku siiyo, sababtoo ah maanta haddii taano aad haysatid, taano dabcan waxaa laga wadaa lacagihii hore oo qofka ka saaxiibkaagana uu haysto taano kale. Haddii aan ka soo qaado lacagta Soomaaliya caadi ka dhigano, haddii aad haysatid ku shilin, saaxiibkaaga ka soo horjeedana uu haysto ku shilin kale, haddii kunkaas iyo kunkaas aad isweydaarsataan oo asna kunka ku siiyo oo adigana aad kunka siisid, labadiina waxaad isdhaafsateen laba lacagood kaliya, kun iyo kun. hase ahaatee haddii aad tala isdhaafsataan oo fikir wanaagsan aad isdhaafsataan, labadiina waxaad haysataan mid walba wuxuu haystaa laba talo oo laba fikrad ayuu haystaa. Sadarteed haddii laakiin kun shilin iyo kun shilin aad qaadatid, adiga kun baa bixisay, kun ayaa heshay, bas weli meesha ayaa joogtaa. hase ahaatee markii fikir aad bixisid oo fikir kaleeto lagu siiyo, fikirkaagii hore iyo fikirka labaad ayaad isku haysataa. sadarteed qofkii taana ku siiyey, qofkii tala ku siiyey waxaa wacan qofkii tala ku siiyo. taladan wax kale ma ahan, haddii tareed aad qaadatid, tareedkaasi aad asal ugu tala gashay, asalkii haddii dhankiisa la aado oo asalkii loo siqo dhankiisa, tareedka ha ka saarin asalka midda koowaad, sidoo kalena asalka intuu ahaa cadadii ahayd ha ka saara marin. tusaale 10 bib ayuu ahaa, 10 bib ku daay, ku qanac inuu suuqu asal jiro. asalka mar walba saaxiibkaaga ha noqdo, sababtoo ah saaxiibkaaga ha noqdo macnaheedu maaha in mar walba asal qaadanaysid. hase ahaatee in aadan hurin ogo, waxaa la hurin maqal jirtid, waxaa wax la hurin soo lama dhihi jirin. asalkuna ma huri doontid inta suuqan ku jirtid. asal iyo adigu walaal ayaa tihiin, sidaa ogeed asal waa difaaca koowaad ee akoonkaaga. dadku waxay u malayaan in dhibaato yahay ama xanuun uu yahay. dhibaato ma xanuun maahan, waa mid ku ilaalinaya hantidaada. haddaa asal ku xiri weysa ka waran oo lacagtana ka guudo, dhibaato ma arrinka. marka si taas u dhicin, mar walba asalka booskiisa ha ka durjinin, sidoo kalena ha ka saarin asalka oo keliya sug ilaa uu asalka ka dhaco ama ilaa uu tiibiga ka dhaco. sometimes inaad bii gashid waa tareedka inaad maamushid. aad baad mahadsantihiin baada bir laba fks. June ayaa la joogaa. June waxa weeyaan waa bilaha ugu zaxmad bilowga ah. June iyo July iyo Agosto waa saddexda bil oo suuqu xaga badan uu ku taagnin laga wacan yahay. bil hore waa qurux badnaay, waxaad ka dareemi kartaan fursadaha baxaya. sidoo kale Agosto markii la dhaafo oo Ilaahayna gaarsiiyo waa ay sii qurux badnaan doonaan. waxaan rajaynaynaa in June ay noqon qurux badnaan doonto iyo July iyo Agostoba fursado fiican aan heli doonaa leedinkii. saad arkaysaan adduunkii waxaa ka jira dagaalo iyo iskoorimaad iyo marna Trump ha ku dhibo, marna Iran iyo waxba hala sheego. baashi waxay noqotay ila mareys magarad. marka hantidaada ilaasho ceeb maahan, lacagtaada ilaasho ceeb maahan, hantidaada ilaasho. inta trade xun qaada lahayd tareed la'aan ayaa dhaantaa. aad baad mahadsantihiin baada bir lafkas.